Ramadaan wanaagsan daawadayaal. Habeennimadii xalay xilli dambe waxaa soo gabagaboobay xilkii uu hayay ra-iisul wasaaraha dalka Bakistan Imran Khan. Barnaamijkeena waxaynu ku eegaynaa cidda mas-uulka ka ahayd waayitaanka xilka ra-iisul wasaaruhu uu waayay. Ra-iisul wasaaraha ayaa la sheegay inay khiyaameen rag ka tirsan xisbigiisa oo ku biiray mucaaradka. Ra-iisul wasaaraha dalka Bakistan Imran Khan ayaa wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga leh tirada ugu badan ee baarlamaanka. Sidaasoo tahay haddana waxaa caawinayay 4 xisbi oo yaryar kuwaasoo u dhammaystirayay aqlabiyadda uga baahnaa. Dhammaanba waxaa ka baxay meesha xisbiyada yaryaraa. Sidoo kale waxaa xisbigiisa isaga tegay rag caan ahaa. Raggaa waxaa ugu caansanaa ninka la yidhaahdo Afsal Khan oo ahaa kaaliyaha ra-iisul wasaaraha ee arrimaha baarlamaanka. Booskaasuu ahaa booska uu mishinkaba ku dhigay maadaama uu ahaa qofka u xilsaarnaa inuu u dhexeeyo baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha. Sidoo kale ninkaasu waxa uu ahaa afhayeenka gaarka ah ee ra-iisul wasaaraha. Horaantii bisha ayuu iska casilay xilalka uu hayay waxaana uu dib ugu biiray xisbigii uu hore uga tirsanaa Pakistani People's Party kaasoo ah xisbigii reer Bhutto ay ku maamulayeen dalka Pakistan muddada dheer. Marka laga soo bilaabo Salfakir Ali Bhutto iyo gabadhiisii Banasir Bhutto, mar dambena uu qabsaday ninkii iyada qabay Asif Ali Sardari. Haddana uu haysto wiilka la yiraahdo Bilal Sardari oo ay labada qof isu dhaleen. Waa ra-iisul wasaarihii hore dalka Pakistan iyo Asif Ali Sardari. Ra-iisul wasaaraha ayay taas waxay ku noqotay dhabarjab aad u weyn waxaana uu haystay oo keliya 2 doorasho taasoo ahayd inuu xilka iska casilo iyo inuu waajaho codka xilka lagaga qaadayo. Uu ogyahay inuu ku guuldareysanayo waxaana uu doortay inuu waajaho baarlamaanka taasoo habeennimadii xalay ahayd 174 xildhibaan ay xilka kaga qaadeen ra-iisul wasaaraha. Sidoo kale waxaan meesha ka maqnayn khilaafkii baahsanaa oo u dhexeeyay militariga dalka Pakistan iyo ra-iisul wasaare Imran Khan. Pakistan ayaa dhinaca dambe waxa ka maamula militariga oo hadba keensada mid iyaga ka amar qaata. Hore waxaynu u ogeyn in ra-iisul wasaarahan 2018 uu ka helay garab weyn militariga kuwaasoo ka dambeeyayba inuu qabsado dalka marka lagu daro sumcaddii uu dadka ku dhex lahaa maadaama uu ahaa ciyaartoy hore ahaana kabtankii u soo hoyay koobka adduunka ee cricketka. waxaase soo kala dhex galay khilaaf aad u weyn militariga iyo ra-iisul wasaaraha kadib markii taliyaha guud ee ciidamada militarigu uu ra-iisul wasaaraha weydiistay inuu jenaraal raggiisa ka mid u magacaabo madaxa sirdoonka. ra-iisul wasaaruhuna arrintaa uu ka biyo diiday. wax yar kadib sidii caadada ahaydba waxaa adkaaday taliyihii militariga. ra-iisul wasaaruhuna waxa uu ku dhawaaqay jenaraalkii taliyuhu uu watay inuu u magacaabo taliyaha sirdoonka. wixii xilligaa ka dambeeyaba waxaa xurguf weyn u dhexaysay militariga iyo ra-iisul wasaaraha dalka taasoo ay kalsoonidoodii kala noqdeen taageereenna mucaaradka. sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan wuxuu ka hor yimid siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka taasoo militariga Pakistan aanay marnaba ogolayn. Pakistan waxay la lahayd xiriirka dhaqaale ugu weyn dalka Mareykanka. militariga dalka ka taliyana waa mid isagu dhaqaale doon oo hadba ra-iisul wasaaraha dalka haysta kula jooga dhaqaale. waxayna ka hor yimaadeen in dalkii ay ka heli jireen lacagta ugu badan uu si toos uga hor yimaado. inkastay militarigu ka dambeeyeen socdaalkii dhowaan ku tegay dalka Ruushka Mareykankuna uu ka carooday haddana waxay ahayd goolkii ugu dambeeyay oo ay ka dhaliyaan. wixii xilligaa ka dambeeyayna Mareykanku waxa uu qalab qaatay in ra-iisul wasaaraha xilka laga tuuro. inkastoo dowladda Mareykanku diiday militariga Pakistan aanu qoraal ka soo saarin in Mareykanku ku lug lahaa haddana waxaa iska cad in dowladda Mareykanku ay tahay tan ka dambeysay in xilka laga qaado ra-iisul wasaare Khan. tan iyo markii Pakistan xorriyadeeda qaadatay waxaa ka dhici jiray afgembiyo aan kala joogsi lahayn. afgembiyadaasoo kuwa aynu ka xusi karno ay ugu weynaayeen kii dhacay 1958 uu jenaraal Ayub Khan kula wareegay xilka. waxaana ku xigay jenaraal Siya Khan oo isagu xilka kala wareegay dilana Sukayr Ali Bhutto sanadku markuu ahaa 1977. waxaanu kaloo xusi karnaa afgembigii dhacay 1999 taasoo jenaraal Parvez Musharraf uu xilkii ka tuuray ra-iisul wasaarihii markaa la doortay Nawaz Sharif. inta Pakistan ay jirtay kala bar in ka badan waxaa maamuli jiray militariga. wixii xilligaas ka dambeeyayna waxay go'aan ku gaareen inay daaha dabadiisa ka maamulaan balse ra-iisul wasaare ay u ogolaadaan dadku inay doortaan. marka ay doonaanse ay soo noqon karayaan. waa tan maanta wadnaha farta lagaga hayo dadweynaha reer Pakistan oo ra-iisul wasaare Khan jecel waxay bilaabi doonaan dibadbaxyo aad u waaweyn taasoo la filayo inay ku dambeyso in militarigu dalka la wareego. inkastoo dadka reer Pakistan ay jecel yihiin militarigooda haddana markan waxay ka hor imanayaan shaqsigii ay u jeclaayeen dadka reer Pakistan
oo ah kabtankii xulka kriketka ee dalkaas. daawadayaal goordhow waxaynu sameyneynaa barnaamijkeenu kaga hadlayno militariyada dhicisoobay iyo kuwa guuleystay oo ay ciidamada militariga Pakistan sameeyeen taliya dalkaasu markuu xorriyadiisa helay iyo awoodda ay leeyihiin inta ay la eg tahay. daawadayaal fadlan ku xirnaada kanaalka, subscribe saara, gambalaalkana furta. mahadsanidin.